علي ورابه waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa sanadii 1948 waxbarashadiisii dugsiga hoose iyo dhexe waxa uu ku qaatay Hargeysa iyo Boorama sanadihii 60-aadkii 1965 ilaa 1968 waxa uu ku jiray macadkii tababarka macallimiinta ee la foolay afkooye 1968 ilaa 1973 waxa uu waxbarasho jaamicadeed ee injineernimada dhismaha uu ku soo qaatay jaamicadda Leningrad ee dalka Ruushka 1974 ilaa 1976 waxa uu Faysal Cali Waraabe oo ahaa isduwaha wasaaradda hawlaha guud ee gobolada Baay iyo Bakool ee Soomaaliya 1976 ilaa 1981 waxa uu agaasimaha waaxda qorsheynta iyo dhismaha ee wasaaradda hawlaha guud 1981 ilaa 1984 injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu noqday madaxii injineerada dawladda hoose ee caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho 1984 ilaa 1990 waxa uu gudoomiye u ahaa shirkadda xagga dhismaha oo la yiraahdo Ayaan oo magaalada Muqdisho xarunteedu ahayd burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya 1991 waxa uu Faysal Cali Waraabe qoyskiisu ay u qaxeen dalka Finland jaamicadda Helsinki ayuu ii sheegay in uu galay oo uu ku soo bartay xiriirka caalamiga injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee uu cidisla marhaantaasina ah murashaxa madaxweynaha ee shaqadaasi ee doorashadan muddadii uu joogay Finland waxa uu madax ka noqday ururada jaaliyadda Somaliland ee dalkaasi iyo Yuruba 1994 ilaa 1996 waxa uu afayeen u ahaa Faysal Cali Waraabe koox aqoon-yahano qurba joog ah oo magac lahaa oo reer Somaliland ah oo u soo gurbaday xalintii colaadihii la soo dirsay xilligaasi Somaliland sanadii 2000 waxa uu kamid ahaa aasaasyaashii xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u ciiday gudoomiyaha ka yahay haatan murashaxa madaxweynaha uu yahay oo uu kamid ahaa murashaxiintii u tartamay doorashadii 2003 ee madaxtooyada Faysal Cali Waraabe mar labaad ayuu hadana murashaxa u noqday doorashadii 2010 hadda 2017 waxa uu taagan yahay mar saddexaad doorashada madaxweynaha la filayo inay dhacdo 13 bisha November 2017 iyadoo kula tartamayo murashaxa madaxweynaha ee xisbiga talada haya ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo murashaxa madaxweynaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Faysal Cali Waraabe waxa uu leeyahay xaas iyo 9 caruur ah oo 8 ay wiilal yihiin iyo hal gabadha waxa uu ku hadlaa afafka Ingiriisida Carabida Ruushka iyo Finishka Ahmed Saciid Cige BBC Hargeysa